gudoomiyaha gobolka Saaxil iyo xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Berbera ayaa maanta ka qayb galay xaflad abaalmarin lagu guddoonsiinay 30 arday oo lagu tartansiiyay xifdiga Quraanka Kariimka oo dhigata madrasada xifdiga Quraanka Kariimka ee Aflax ayaa lagu qabtay xarunta madrasadaasi waxaana munaasabadani ka soo qayb galay salaadiin iyo waalidiinta ardaydaasi iyo marti sharaf kale waxaana ugu horeyntii hadalka daafuray maamulaha madrasadaasi Sheekh Saleebaan Maxamuud Ismaaciil isagoo maamulka warbixiyay ujeedada ay u qabteen tartankaasi barnaamijka iminka aynu fadhino waxa weeyaan tartan muddo soo socday oo ardayda ka dhex socday hablaye inamaba habluhuna ay gaar u tartamayeen inamaduna ay gaar u tartamayeen ayaynu maanta gabagabadiisii joognaa ardayda ka qayb qaatay tartanka tiradoodu waxay ahayd 30 arday oo ka kala socday 10 galaas 5 galaas oo habla ah iyo 5 galaas oo inama ah maadooyinka ay ku tartamayeen waxa ka mid ahaa Quraanka Kariimka oo ugu horeeya tawxiidka fiqiga iyo tajwiidka tawxiidka waa xaqullah ala al-ibaad xaq ilaahay uu ku lahaa qofku inuu garto iyo fiqiga oo ka warramayo qofku sidoo cibaadeysan lahaa iyo tajwiidka oo hadafkiisu yahay qofku inuu Quraanka si fiican u akhriyo maadooyinka ay dhigtaan intaa way ka fara badan yihiin laakiin afarta maado ayaa ay ku tartamayeen tartankii uu soo gabagaboobay qaybtii u dambeysay shalay baa la qaaday maantana insha Allah ta'ala jawaa'istii iyo abaalmarinadii ayaynu siin doonaa waxaa kaloo iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Saaxil Cali Maxamed Cilmi iyo xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Berbera Suhayb Maxamed Cali ayaa iyaguna si weyn ugu mahadnaqay maamulka madrasadaasi iyagoo sheegay inay madrasadani kaalin weyn ka qaadatay xifdisiinta daayirta soo kacaysa Quraanka Kariimka ah waxa maanta farxad weyn oo ah inaanu ka soo qayb galno tartankan Quraanka Kariimka ee madrasada Aflax oo ah dhiirigelin loo sameeyo ardayda laguna ogaanayo kolba halka ay taagayeen iyo dhiirigelintooda runtii waa wax aad loogu farxo munaasabadaha ugu qaalisan weeye meelaha ay ka socoto Quraanka Kariimka ama qowlkii Ilaahay oo ay baranayaan dadka u baxay faraha badan leh aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa madrasadan macallimiinta ah barbaarinayay ama soo waday maamulka madrasada haday macallimiin tahay iyo haday maamul tahay iyo madrasadaba runtii amaanay qaadeen amaana aad iyo aad u culus ayay qaadeen waxa isweydiin leh inaan isweydiino kama waalidiin ahaan amaanadii ay qaadeen horta ma ka soo baxeen mise kama soo baxeen waxa su'aasha jawaab u ah ثمرة iyo midhadhalka aynu madrasada ka hayno muddadii ay dhisnayd ama ay shaqeynaysay ama ay ubadkeena haysay waxaana muuqata hor ilaahay habeen aakhiro in madrasadu amaanadii ay qaaday inay ka soo baxday bal inay ka sii siyaadisay wal baladu tayyib yakhruju nabatahu waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah waalidiintii ka soo qayb gashay munaasabadani waxay iyaguna si wada jir ah ugu mahadnaqeen maamulka iyo macallimiinta madrasadaasi iyagoo sheegay inay mar walba u heelan yihiin sidii ay u soo saari lahaayeen arday xaafid quraana Khalid Xasan Nuur telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV Berbera.